hadalladii xasan sheekh oo ku sheekeynayay 4 bilood ka hor 2 bilood 3 bilood ka hor oo ku sheekeynayay maantay asaa dhiiqada lugaha kula jira dhibaatada maanta xasan sheekh haysata marka waxa waaye 5,000 oo kumaandoos ah waxaan ognahay ragga ugu qatarsan ee abid ciidan loo tababaro inay yihiin yaa waa raggii laga sheekeyn jiray waxay cuni jireen jiirta iyo nugula cabsii jiraya Etoobiyaanka lagu cabsii jiro waa raggaas oo sidaa u tababaran oo 5,000 ah waxa ay qabsan karaan Ethiopia waxa ay qabsan karaan Kenya waxa ay qabsan karaan geeska Afrika oo dhan ciidan is haysta oo tababaran oo dhalinyaro ah gibigood ay nin 30 gaaray aanu ku jirin macnaha dawlad Afrikaan ee haysatay ma jirtaan aaminsanahay aniga waxay u baahan yihiin meel la dejiyo oo organization weyn oo logistic ah oo maartay dhinac walba ay u baahan yihiin marka dawladdan arintan maxay meel u dhigtay maxaa waay qorshaheedu sidee waay maxaan ku raadahay raggan ay u xalin doontaa su'aasha aan caawa qabaa waa taas oo aan idinkaga baahanahay inaad meel saartaan lacagti loogu talagalo meeshii la dhigay mushaarkooda wixii waa la kala jiitay waa ognahay oo iyadoo dawladda 2 bilood aanay gaarin ayay mushaaraadka bixin la'dahay mushaaraadka shaqaalaha kii ciidamada kii golaha oo ciidamada amniga wixii oo dhan ayaa waxay halis u yihiin hadda in nin walba fanta shuruuf al-ardli ay noqoto nin walba oo gurigiisa aado oo hadduu isbaaro dhigan karan oo isbaaro dhigto haddii kalena duurkiisa oo ka shaqo doonta ayay hadda joogtaa si aan la soconno marka maxaa xal ah su'aasheedu waa taacaaw aan in soo dhex dhigayo waana mahadsantiin cabdi fiyo brother aad iyo aad baa mahadsan tahay aniga de hadda waxa moodaa hadda daqiiqada ka hor baa ka hadlay oo lahaanay waxa ka baqaya ciidamadan dawladda hore qorshe ka lahayd cid oo hubeynaysa taqaanay cidda maaragtay aniga saa maqlay horta waxa maqlay ciidamadan de cid dawlad baa u hubeynaysa mushaarka dawlad kale ka caawinaysay waxa la rabay in dollar laga soo galiyo ayagoo victory oo guuleystay saa ku yimaadaan Muqdisho hadda qorsheydana waa isbedelay aniga waa kula qabaa 100% maaragtay walaacagaas aadna waxa uga baqaya aniga maaragtay inaan nimankan imaaraad iyo shayaadiinta gacanta loo galiyay marlow laba xaalad mid bay noqonaysaa nimankan inay imaaraad dawlad macnaha ay Xasan Sheekh Maxamuud maanta dawladda Soomaaliya miisaaniyadeedu waxa waaye waa lacag aad u badan Xasan Sheekh Maxamuud horta waa nin aad u been badan waa qof kuna hadduu beenta ku dhaqmo oo credibility-giisa waa dhintaa hogaamina ma noqdo hadda waxaad ogeydeen ra'iisul wasaarihii hadda Ingiriiska Boris Johnson waxa uu eersaday waxay ahayd laba waxyaalood oo mid ugu weyn waxay ahayd nin oo kabinetkiisa ku jira oo sex abuse waxa sameeyay oo ogaa oo la weydiiyay hadda ka hor buu ka gaabsaday macnaha wuxuu dhahay anigu warkaas ma hayo cadeyn ma hayo waxaas uuna ogaa waa qarin kaliya asaga xataa ma sheegin waxaan oo qariye runta haddaa qarisid oo public iyo dadweynaha ka qarisid khiyaano ka weyn oo geli lahayd ma jirto waa dambi waa crime waa tii kalena waa tii COVID-19 ko dadku meesha intuu soo keenay oo asagoo COVID-19 ku jira sanadihii hore 2021 waxaad maaqaan 2020 labada waxyaalood buu madaxweynihii waxaa la yiraahdaa performance-ga Boris Johnson aad buu sareeyay waxa kale inta kale laga reebo laakiin public dadka citizen dadka ku nool dalkaasi they didn't care anything else integrity-ga wax walba kala weyn character-ka iyo shakhsiyadda qofka wax walba kala weyn dalka disgrace ay ku tahay hadaa beenaala tahay dalka dhan baa waxa ku tahay ambaar baa ku tahay dalka foolxuma ku tahay haybadii dalka ma qaadi kartid waa macna haybadii ciidamada ma qaadi kartid 20 milyan oo Soomaaliya hatta ku dar kuwa oo dawladaha kale ku nool ama qurba joogaada ama Kenya ku noolaada ama Ethiopia ku noolaada asaga xambaarsan magacoodii haddana waa beenaale
inuu been sheegayana wuu ogaa. ninka saasa hal waxa hadduu 100 wax oo dambe oo fiican sameeyo performance-giisu aad u fiicnaada xataa wax macno ay sameynaysa lama arko. He has to come out uu yiraahdo bulshada iyo ciidamada iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinayaa 5 sano beentaan akhrinay. waa qatar way arrintaas. Soomaalidu waa dhayalsataa, waxay ku leeyihiin campaign bay ahayd. campaign ma aha waxaas, waa been waay, waa turfatoranimo waay. waxaan ummadda haybadoodii nin sida hadda ka horna madaxweyne soo qabtay haddana been ku dhaqmaaya. waxaasi waa disgrace waay. ummadda international community-ga oo la shaqaynaysana oo Soomaalida la macaamilaysana they know inuusan integrity lahayn. sida marka ay u akhriyaan karakterkiisa u yaqaanaan bay hadhowna ula dhiltamayaan. nin meel iska saaray male. alla yaa ogaada Turkiga markuu tagay si loola hadlay, markuu hadda Eritrea si loola hadlay annaga ma ogin. saxaafaddu wuxuu isaga reebay waa ogtiin. waa la canaanaya, waxa leedahay waxa tahay lama arko. wax kale maaha, wala way ogyihiin. they know who he is. problem ka jira taas waay. ciidamadan hadda waa 5800 sida aniga xogta ku hayo. waxaan kaloo ogahay in ciidamadan qalabkooda ay wataan oo loo diyaarsan yahay qalabkooda. waa fawark Soomaaliya waa iska cunaqabateyn baa saaran oo hubka culculus looma ogola, laakiin wax ay ku falkamaan hadda way wataan. laakiin dibku waxa ka jira waxa Xasan Sheekh saan ku baranay. Xasan Sheekh Maxamuud waxa ciidamada taas u tababaran dawladda hore system baa ciidamada u sameysay. isku tababar ma ciidamada kuwii gorgor commandos gorgor gooni bay deganaayeen. case gooni yahay, military gooni u degan, ayaga goonidooda u falgaa, orderkoodu gooni yahay. taliyaha ciidamada uu hoos taga, laakiin intooda kale ayagu gooni u ahaayeen. mushaarkoodu ka gooni yahay, dhaqaalahoodu ka gooni yahay. kuwan dana Mareykanka soo ku shaqeysta, laakiin ayaguna gooni bay ahaayeen. haramcad gooni bay ahayd. ciidamadan ayagu tababar gooni qabaan, gooni waay, macaamil gooni u baahan yihiin. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxaasoo dhan waxaa balaan gooni dawladda u haysay dawladda hore. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kala weyn Sani Cabdulle iyo kuwii badbaado qaran baa kala weyn. waxaasuu ku dhex darayaa, midba maalin buu meel dayacan ugu tooganayaa, finish khalaas bay noqonaysaa. ama mushaar la'aan bay u kala cararayaan. wax hadda looga farxo weyn anugu ma arko wallahi. waa laga yaabaa in ilaahay ummadda Soomaalida u gargaaro oo sidaan moodaysan noqon, laakiin cabsi weyn baa jirta. ciidamadaasi in laga faa'iideysan waayo, in lagu dhex daro ciidamada aysan isku tababar ahayn, in hoggaan loo sameeyo aysan ayagu u qalmin oo aysan tababar ahayn. 2 sano ciidamo tababaranaya ka war. waxaa lagu leeyahay ninka tababarkii qabaan waxaa loogu talagalay ninkiiba inuu week dhan asoo cunto u socdo oo tababarka ugu khatarsan buu qabaa. sidaad ogtihiin ciidamada Eritrea maalin warbixin waxaan dhageysanayay laga diyaariyey. warbixintu waxay ciidamada dawladaha ciidamada ugu tabarta yar waxaa lagu soo daray Sacuudiga iyo waxaa lagu soo daray Eritrea. waxaa la yiri Afrika marka la yiraahdo waa ciidamada ugu tababarka fiican, ciidamada ugu badan ayaga haysta. qalab fiican ma haystaan, laakiin tirada dadka dhan baa military oo tababaran. tababarka physicalka qabaan iyo tacticada qabaanna waa number 1 Africa. nimanka tababarkaas ay qabaan marka cabsida jirta waxa waay. balka warama hadii lagu yiraahdo kuwii badbaado qaran baa mid ahaa madax oo sargaal looga dhigaya. balka warama hadii lagu yiraahdo waa la isku darayaa, waa la isku waxaynay. balka dawladda hore waxaan ognahay 2000 ba meel bay u qorshaysay, 1500 meel bay u qorshaysay. gobolada la kala geenay inta ugu badan jubbada dhexe iyo meelahaas loo waday, iyo jubbada hoose. qaar baa Southwest loo waday, qaar baa loo waday ninka la yiraahdo gobolada dhexe. maamulkoodii iyo systemkoodii waa san, darajooyinkoodii wuxuu waa hagaagsanay. laakiin hadda wixina waa isbedeleen. hadduu jidkii hore ku shaqeeyo oosan ka leexanin, xataa cabsi waxaa jirta waxaan asagu mushaar muu heli doonaa ilaa waa ninkaan ogeyn oo ciidamada waagi hore ay agtiisa ku dayacnaayeen.
problemka jira waa taas wey dadka waxay ku leeyihiin dadka Soomaalida siyaasadda qurbaha asoo jooga qofku wuxuusan fahansanayn waxyaalaha campaign-ka lagu galo waxyaalaha beenta laga sheego inaysan security-ga dalka ku jirin nina kuma campaign gareeyo ciidamada ninba kuma campaign gareeyo security-ga nina kuma campaign gareeyo macnaha wixii dalkan wax u dhibay iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa xisbiyada ayaga israadsada ayaga ismucaarada ayaga iswaxay laakiin ma jirto meel ciidamadu ma nabadii nolol bay ahaayeen ciidamada Soomaaliyeed bay ahaayeen waxa lagu leeyahay campaign baa ninba hadda inta aad ka celiseen wuxuu ku leeyahay campaign baa ciidamada nabadii nolol ma ciidamadu ciidamada Soomaaliyeed ciidamadu ma ahayn farmaajo hatta baro ka dambeeyo laakiin ma ahayn farmaajo waa ciidamo laga raba in next 40 years 50 years nin walba dalka u shaqeeyo waa campaign baa ku galaya buu leeyahay waa xaraam waa xaas waa crime weyn waa idinka soo celi aad iyo aad baa u mahadsantahay Axmed Kulani waxa waaye war nin baa hadda sheeka noocaas ah soo galay wuxuu yiraahdaa waa campaign adduunyada ajendaha siyaasiga iyo ajendaha qaranka labadaas qofka duusan kala garin horta dhibaato badan baa jirta qofka hadda ajendaha siyaasiga iyo ajendaha qaranka isku walaaqo aniga waan ogolahay ninka run iyo been baa sheego farmaajo maanta dhan iska cay been ka sheeg waa siyaasi run ka sheeg waxa rabta ku sameey isoo okay dib ma jiro adiga nacbow jeclow beenama sameynaystaas laakiin Turkiga intaan ku warqad qoro anigoo madaxweyne Hebela iyo ra'iisul wasaare Hebela iyo madaxweyne Hebela naga jooji ciidamada noo tababarayso anigoo madaxweynahan soo istaaganayo caalamku lacagta uu nasiinaya naga joojiyo anaga waxaan nooma tareesay waa masiibe hadda waa lacag dinacafinta mushaarka shaariicda inaan markay Kenya isqabtaan maaragtay Soomaaliya aan Kenya la jiro inaan ciidamadii Soomaaliyeed ee loo tababarayay in laga qarinayo xalana iyo tuugada meesha fadhida waa ogtiin oo markay 2020 madaxweynuhu markuu qaaday ciidamada horaanti meena 2020 Mareykanku si cad buu u sheegay Ingiriisku ciidamada Eritrea ma geen kartid dhuu ka dhagaadeega waa geeyay markuu soo celinay doorashada wuxuu dad soo celiso khalaas doorasho ma jirto waa iska joojiyay waxyaabaha noocaas ah ajenda siyaasi ma aha ajenda qaran waay يعني قف أن كنت كلا فانسانين برا بس كلا شيء كستو قلنا كامبين وبلا dadka noocan ina dhageystay mar rabin dad kan hayaan waqti la naga galo min murankooda iyo buuqooda wadadka aniga waa tuura oo reeran ba soo galay reer galbeedka waa ogtiin buu ka bilaabay ruuxan kala garan horta ajendaha qaranka ee ajendaha siyaasadda uu siyaasada kuma diidani xisbiga caayisa kuma diidani laakiin wadanka iyo ciidamada iyo waxyaabaha noocaas lagama hadlo min badada kuwa haysta inaad la jirto inaad tiraahdo Eritrea maxaan u sameysanayaa xilli maxaan Djibouti u dhaafay Djibouti aniga waxa weeye wadalday aniga dal baan ahay ma yeerin karto maarta cidana la saaxiibayo صاحبكي علي محمد بارك يا واكو صاحب يا علي محمد نبا كا هوريسان كان كا هوريسينيا waxa weey aad baa ku salaamay aysan ku soco artu waxa way coach waa maasantiin adiga dhalinyarada meesha ku jirto runtii barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan waan dhageysanayay runtii arrintan waa arrin si guud marka loo fiiriyo Soomaaliya guul u ah 5,000 oo askari oo maanta Soomaaliya ay leedahay oo shanta Soomaaliyeed ka kooban maanta in tababar maanta loogu soo xiro waddanka Eritrea waa arrin qof walba oo Soomaaliyeed oo maanta farxad gelinayso marka dhinaca ka fiiriso labadii sano la soo dhaafay waa wada ogtihiin waxyaalihii la soo hadal qaadayay iyo wixii social media laga waday oo ay wadeen maafiyadii siyaasadeed oo isku magacaabay midowga musharaxiinta runtii dadka inta badan waxa waaye waxay dhageystaan beenta dhageystaan runta ma dhageystaan wax walba oo dadka bini'aadamka ay maqlaanna waxay u jecel yihiin wix ayaga ay arkayaan oo qofka hor taagan inuu hadlayo runtii uu ku ammaanay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo tiimkii la socday hantidan maanta waxa way wadanka uga tageen horta waa yar yahay madaxweyne Soomaaliyeed oo hantidan maanta wadanka uga tagay madaxweyne Farmaajo uga tagi doona inuu imaadana asagoo kalena waa rajeynayna oo wadanka iyo dadka iyo waxa way dalka noo dhiso wadan waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa ugu horeysa waa ciidanka awoodda militariga uu wadanka leeyahay runtii waxa weeye waana arrin markaad dhinaca ka fiirsana Soomaalida dadka inta badan waxa waaye waa social media wax ka socda waa arkaysaan 2 sano ka hor waxa la iibsaday iyo waa dhinteen iyo waa dhaawacmeen
dagaal bay galeen caawana waa arkaysaan ayagoo maanta sharaftii iyo waxaa waaye karaamadii ay waddankooda uga tageen on the sun. Wallahi Halim, that's the question I have is, what is the motivation and what was the agenda behind? There's a lot of smart people here. Jamal, can you come up and what you thought is, brother, since you are a very political savvy guy, what do you think? And we don't know exactly, but what do you think is the reason Hassan Mashruali? That's my question. Ambassador Jamal intuu imanayo fikradeyda ka dhiibtee horta fikradeydu waa mid maxaa yidhahdaa ay tahayba fikradeydu waxaa weeye ambassador horta ninku marka hore wuxuu aaday qolyahan magaranaysa carabtu u tegey maxamed bin sayid halkaasna israel buu magaranaysa kala soo hadlay dabeedna wuu soo laabtay markuu soo laabtay turkigu aaday turkiga markuu saa uga yimi xitaa maalinkii isagoo dhammaan ciidda buu Eritrea aaday halkaa waxaa ka muuqata in xasan sheekh maxamuud dhinaca turkiga magaranaysa laga soo hadlay ama magaranaysa waxaa lagu soo qanciyo oo xaggan magaranaysa imaaraadka wixii loo soo sheegay inay magaranaysa waxay tahayba laga bedelo ama magaranaysa run ha loo sheego xasan sheekhteeda kale waxaa jira qolyahan atmis ah maxay yidhahdaa ciidankan dalka jooga waa tii dowladeena hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay magaranaysa la saxeexatay inay magaranaysa sanadka bacdi ay meesha ka baxaan ciidankanna waa ciidan ku dhergay waddankeena joogo aan rabin inay baxaan propaganda bay sameeyeen ciidanka magaranaysa baahida loo qabo si ay u muujiyaan ay kii wariyihii magaranaysa wasakh ahaa khayrdoonkii kii wasakh ahaa magaranaysa ashaarku u dhawaa ay isticmaaleen oo ay magaranaysa warbaahinta keeneen arrintaas way fashilmatay shacabka Soomaaliyeed oo ku kacay waliba magaranaysa dhalinyarada nabad iyo nolol magaranaysa ay shacabka tuseen marka qolyahan atmis markii magaranaysa propagandahan ay rabeen in magaranaysa meesha ay ku sii joogaan al-shabaab meesha imanayso qatar baa imanaysa daraadeed xasan sheekh magaranaysa noo aqbal in dhinaca turkiga laga soo tusay wariyaaha waxaa samaysaa ciidan baalka ku jooga 5,000 oo aad horey magaranaysa u aflagaadaysay oo aan wajhi ka lahayn laakiin aad ku qasban tahay marka ciidankaas hadda soo qaado oo magaranaysa xuduudaha dalka iyo al-shabaab meelaha magaranaysa ay dhufays uga jiraan qolyahan atmiska dhigo marka arrintan arrin uu isagu magaranaysa maskixiyan ka dhaadhacday oo uu ku kacay maaha arrin dhinaca turkiga lagaga soo qasbay oo leedanaha dalka inuu joogo oo magaranaysa lugihiisa dalka ku socdo oo geeraan u gurgurto idinkana dambe noo tahay annagana magaranaysa dowladda turkiga dambe u tahay saas daraadeed waxaa ku qasban tahay inaad magaranaysa wadada mirtid oo ciidankaas aflagaadis soo qaadid raggan halkan magaranaysa kuuba la xoofteynaya meesha waa ka baxana haddaan ka baxnayna al-shabaab halkaas weerarinta ka soo qaato qabsanaysa dhulka halkaas magaranaysa kugu baa la xoofteynaysa waxaa ku bedelaysaa ciidankaaga marka amar laga soo siiyey turkiga ayaan filayaa inuu ku tiri xasan sheekh meeshaas Yeah, it's possibility. Pastor wax salaamay waa Jamal weey. Su'aashii igu soo celi mar kale. Maxay su'aasha waxa weeye brother Hassan Sheikh. As you know, inuu yahay nin oo ninkii article-kii journaaladii ii sheegay from Chicago Tribune, she called him a dealer. He's not a leader, he's a dealer. Marka maadaama oo dealer uu yahay og tahay oo dealer uu yahay arrinta uu degdega u aaday Eritrea asagoo aan nasan oo shala ka yimid Turkey dowladdii aan la dhisin golihii wasiirada aan la dhisin ajentii governmentiga aan la dhisin
And what's so urgent? Why? What maxaa ka dambaysa kulata ujeedada meesha u aaday ma sabotage miya ma espionage miya ma dacaday ka tahay ma wax kala jira aan ogeyn? It's a mystery to me the reason he went there. So what's your opinion? Ani ma ogu wax ma jirtay. ما هو سؤال مهم ولا لا هذه هذه مهمة waxayna salka ku haysaa dhaqanka siyaasadda Soomaalida ku haysaa bay salka ku haysaa waxaad aragtaan in badan dib u noqdo haday aad maaragtay fiirisaan madaxweyne kasta ama maaragtay group kasta waxa ugu horeeya oo uu sameeyo waa ku kala duwan yihiin oo dadku maaragtay intensity-gooda ama inta sida ay u sameeyaan ama tirada ay ka sameeyaan waa ku kala duwan yihiin laakiin guud ahaan alcumuum waxa weeye waxaa jira pattern oo maaragtay madaxda Soomaalidu ay sameeyaan markii ay meel qabsadaan oo ay kursi qabsadaan ama madaxweyne ha noqdeen ama maaragtay ra'iisul wasaare ha noqdeen waxa weeye diyaarad intay raacaan inay adduunka ay maraan waa wax maaragtay aad u dhaca weeye oo maaragtay siiba xasan sheekh kuma sii jiro haddii aad fiirisaan xilligiisii horeeto I don't know say accurate oo tahay ninba wuxuu yiri 400 oo safar buu galay buu yiri maaragtay 4 sano that means every year wuxuu galayaa 100 safar oo maaragtay adduunka maaragtay inta aan ognahay oo aan la soconno waa inta maaragtay kaliya looga siiyay laakiin inta aan looga siinin journalkii shalay ka soo baxay Israa'iil oo arinta dadka ka naxisay ay ku qornayd waxa ku qornaa in uu safar badan article kale ta ku hoos jiray oo maaragtay 2016kii ay qoreen jaraa'id qariiradan ay qoreen oo ahaa in uu safar badan oo sir ah uu ku tagay Israa'iil uu ku tagay